dad badan oo kurbaysan oo caruuro ka tahriibeen baa jira oo badaha ku dhibaataysan allaha nabad yeelo bari iyo meel bad qabta allaha geeyo shirkaddan Carafaad howlo muhiim ah ay bulshada u haysay oo waxa weeye xujayda inta faraleeg ayay shirkaddu u shaqeynaysay marka waxaan ka mahad celinayaa adeegyada kala duwan oo shirkaddu ayay noo qabatay shirkadda xajka iyo cumrada ee Carafaad ayaa maanta Garowe ka dhoofisay xujay sanadkan nasiib u yeeshay inay soo gutaan waajibaadka alle qaar ka mid ah xujayda oo warbaahinta la hadlay ayaa uga mahad celiyay Carafaad adeegyada ay u qabato bulshada ilaahay ha ciseeyo hana barakeeyo marar badan oo raacayna waa arkay dadaalka lagu jiro sida wax loo maamulayo iyo qaabka yihiin annagana ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu maaragtay naga aqbalo xajkayaga dadaalka ay shirkadu wadana in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku sii hagaajiyo sida ay si ka fiican oo ficlan waxaan oran lahaa oo message-kaygu hadda yahay war dadka xujayda ee baxaysa ee waliba ka tagaya wadanka dadka kale ee gobolada kale wadamada kale ka imaanaya gobolada kale fursadaha hasiya maadaama iyagu gurigooda joogaan taasna waa ku dari lahaa waxaan aad iyo aad uga helay runtii khidmada ay dadka heleen haday ahaan la soo dhaweyntii dejintii daliilkii markii xagga la geeyo ninka maanta ay fursad u siiso inay Carafaad ka hayso wuxuu ka nasiib badan yahay nin keligii iska socday oo waagi hore intuu tagay hadba meel ka dhacay nin meeshuu ku cibaadaysanayo iyo meeshuu booqanayo meeshuu dhaqaaqay inta wala tusayo aad iyo aad baa mahadsantihiin maantay waa maalin weyn jaaliyadda Minnesota oo ka xajinaysa Garowe sharaf bay noo tahay inaan ka xajino waddankeennii shirkadda Carafaad oo agency garaysay runtii service aad u qiimo badan intii aan gobolka joognay iyo waxaan rajaynaynaa service ka si fiican markaan xaj ka tagno dhammaan jaaliyadda reer Minnesota Minneapolis waxaan dhihi lahaa isku diyaariya sanadka dambe shirkadda Carafaad oo runtii shirkad aad u qiimo badan ah oo servicekeeda iyo shaqaalaheeduba ay aad u sareeyaan aad baan u mahadsantihiin shirkadda Carafaad iyadana waa hawsha muddo dhan ku jiray oo ilaa bishii 6 bilood ma ku dhawaad waa uga mahad celinaynaa sida ay maartay hawshan u soo fududeysay haday tahay tegidii waxaan nahay qolada u dambeysay qoliyo hore nabadgelyo ku tageen annaguna sidoo kale aan rajaynaynaa insha Allah inaan weelo boorka xagga uga degno xajka ama cibaadada xajka ama ruknigaas oo ay noo shaqeeyeen shirkadda xujayda ee Carafaad noo shaqeeyeen waxaan ka wadaa noo adeegeen aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa shirkaduna min bidaaya ilaa nihaaya dadka iyada indhow ah oo wada oo qof kasto ilbaxa iyo qof kasto ribaadiyada wuxuu ku khasban yahay inuu iyaga daba socdo sababtoo ah documentiga kaliya aadan ka soo lug baxaynba marka shirkadda anigu aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa min bidaaya ilaa nihaaya aniga waliba iyadoo xajku iga buuxsamay iga dabageeyeeno mahad gaar aan u sii celinayaa aad iyo aad ilaahayna waxaan ka baryayaa aniga iyo intii la socotaba inuu xajka ka soo aqbalo xaaladayada mid shanshana ka dhigo annagoo nabad qaba Garowe nagu soo celiyo aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa saaxiibaday shirkadda cumrada iyo xajka ee Carafaad way mahadsan yihiin si fiican bay noogu adeegeen marka waa soo dhaweynaynaa annagana ilaahay camalka noo barakeeyo iyagana shaqada ilaahay ha barakeeyo shirkadda Carafaad xaj wal cumra oo maanta xamladii ugu dambaysa ka qaadaysa halkan adeegeeda wanaagsan iyo siday dadku wacyi gelinayso aad ay ugu mahadsan tahay oo aan u mahad celinaynaa inta kadib waxaan leeyahay oo kala dardaarmaya dhammaan walaalaha xajka u socda inay niyada wanaajiyaan acmaalna u diyaar garoobaan acmaashu maanta ayay ka bilaabanaysaa 3 saac kadib markii diyaaraddu kacdo waxaa insha Allah lagu aadan yahay Madiinatul Munawwara magaaladii nabiga kaleey salaatu wasalaam oo aad ku fadli badnayd aad kana mataqaana aasaartii saxaabada iyo qabrigii nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo asxaabadii maqbuurteedii iyo meelihii ay asxaabtu dagaalka ku qaadeen oo ku dhinteen intaba mataqaana ayaa la soo booqan doonaa maqsadkeena u weyn waa inaynu soo booqano Madiino oo ah meel aad u fadli badan Madiina nabiga kaleey salaatu wasalaam isaga xaram ka dhigay marka meelo badan oo Madiina ka midna waa soo booqan doonaa marka insha Allah taala aad iyo aad u mahadsan tahay shirkadda Carafaadna waa mahad celinayna
bilihii ugu dambeysay sidaad la socotid shirkaddan carafaad howlo muhiima ayay bulshada u haysay oo waxa weeye xujayda intaa faraleeg ayay shirkaddu u shaqaynaysay marka waxaan ka mahad celinayaa adeegyada kala duwan oo shirkaddu ayay noo qabatay oo weliba ilaa iyo haddana ay gacanta nagu hayso waa ujeedda maanta xujayda ugu dambeysay inaanu nahay ayaan filayaa oo maanta xajka ku socota marka shirkadda iyo madaxda kala duwan shirkadda u shaqaysana waa u mahad celinaynaa marka waxaan filayaa in ay sanadba sanadka kasii dambeeya ay shirkaddu ay kasii wanaagsanaanayso annaguna waxaan ku faraxsannahay in ay shirkaddu si wanaagsan ay noogu adeegto. gudoomiyaha shirkadda xajka iyo cumrada ee Carafaad Axmed Cabdi Samatar Surcad ayaa tilmaamay in shirkadda Carafaad ay mar walba u taagan tahay u adeegidda bulshada. maanta ay tahay 3 bishii shanaad 2025 oo ku beegan 3 bisha Dilxaj bisha 12aad sanadka 1446 hijriyada waxaan joognaa airportka Garowe alxamdulillaah rabbil caalamiin. xujaydii sanadkan oo tiradoodu ay ahayd ilaa 9 falay oo ka baxayay Puntland iyo SSC u baxayay 2 ay ka baxday Boosaaso 7 ay ka baxaysay Garowe falaydkii u dambeeyay ayaan maanta joognaa gabagabadiisii alxamdulillaah rabbil caalamiin. si qurux badan oo nadiif ah ay noogu dhamaatay shaqadaasi ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaanahu wa ta'aala marka koowaad noo fududeeyay inaan khidmadda xujayda qabanno u adeegno isku dubaridno aan babixino maantana kii u dambeeyay aan la soconno ilaahay waxaan ka baryaynaa xujaydaas inuu acmaasha ka soo aqbalo nabadna ku geeyo nabadna ku soo celiyo sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay khidmadda xujayda oo ay ugu horeysa wasaaradda arrimaha diinta Soomaaliya iyo bicithada cid kasta oo shaqada haysay maamulka shirkadka xamlooyinka sidoo kale shaqaalaha shirkadaha xajka ka shaqeeya oo ugu horeeyaan Puntland Carafaad iyo Hoggaan iyo Hammi iyo sidoo kale shirkadaha kale oo qarni iyo Zaajba sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo qayb ka ahayd shaqada xujayda oo ay iyagana ugu horeeyaan dawladda Puntland maamulka airportka ugu horeeyo ciidanka amniga maareeyaha wasiirka duulista hawada oo isaguna qayb ka ahaa wasaaradda cadaaladda Puntland oo iyaduna qayb ka ahayd dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay waa uga mahad celinaynaa ilaahay waxaan leenahay miisaanka xasanaadka idinku daro sanadkiisa kalena ilaahay subxaanahu wa ta'aala bashbashii barwaaqaha ku geeyo sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa saxaafadda oo iyaguna qayb ka ahaa xujayda isku dabaridkooda iyo iclaankooda sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa mar kale xujayda Soomaaliyeed ee ka imaanaya daafaha caalamka ee raba inay dalkooda ka xajiyaan iyo dadkooda la xajiyaan waan soo dhaweynaynaa gacmo furan wax leena ku soo dhawaada sidaan hadda idinku khadmaynay ayaan idinku khadmayn doonaa insha Allah ta'ala sanadkan 2025 waxaan rajaynaynaa xajku inuu ku soo dhamaado si qurux badan oo nabad ah hadii Alla idmo. maareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe ayaa xusay in shirkadaha xajka ka shaqeeya ay shaqo adag hayaan isla markaasina shirkadda Carafaad ay tahay shirkadaha u adeega xujayda. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan shirkadaha xajka waxaa ka dhoofay 9 falay baa ka dhoofay Puntland waxayna ku dhamaadeen shaqo fiican oo hadii Ilaahay ku rumeeyo si nidaam ay ugu dhamaadeen xagga amniga iyo xagga tasdiilaadka way iska dhici kartaa waxyaala iska dhaco cabashooyin dadku ka cabcawdo waxaan kaloo soo dhaweynaynaa dadkii ka yimi dibadda oo u dhoofay xajka u socday cabashooyin xoogaa yar baa jirtay ay ka cabanayeen baasaboorro Soomaaliya inay wateen mid ajnabi ay wateen dabadeedna ay ku soo dhoofeen baasaboorkii ajnabiga ahaa kadibna markay soo galeen madaarka ay la soo baxeen kii Soomaaliga ahaa xoogaa la yiri mar haddaad ku timaadeen kii ajnabiga ahaa waxa la rabaa kii ajnabiga ahaa in la macaamilo maxaa yeelay kii exitku ugu dhufsanaa ayaa la rabaa interiga in loogu dhufto marka taasi xoogaa ka cabanayeen ayagana adigu hawshoodii waa dhamaynay insha Allah waxaan rajaynaynaa Ilaahay idinkii in muxuu ahaa hadda wixii ka dambeeya aysan wax cabasho ka imaan waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa sida habsamida leh ay u socoto xujaydu iyo sida loogu khidmeeyay aad baan ugu mahad celinayaa haddaan anagu nahay airportkana hawl fiican baan ka qabanay in xagga amniga ha noqoto ama xagga maartay soo dhaweynta ha noqoto Ilaahay idinkiina waxaan ka rajaynaynaa in Ilaahay xajkooda ka aqbalo dalka iyo dadkana ay soo duceeyaan
haddii ilaahay idmana waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisa kale in ilaahay uu ku gaarsiiyo caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash ayaan rajaynaynaa ilaahay iidankii waxaan kale oo iyadana u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalihii iyo intii kale oo ka qayb qaadatay oo soo dhoweynta ahayd ayagana waa u mahadcelinayaa sidaa darteed waxaan leeyahay walaalayaal inaad halkaa ka sii wadaan oo ayna ka daalin oo aad sidaad ugu khidmaynaysaan dadka ugu khidmaysaan oo soo noqodka iyo sii socodkaba aad si fiican ugu khidmaysaan dadkuna uusan cabasho keenin annaguna insha allah waa dadaalaynaa ilaa idankii garaad jaamac garaad cali oo ka mid ah ismada dhaqanka ee SSC ayaa ku ammaanay adeega wanaagsan ee shirkadda Carafaad ay u hayso bulshada. Allah azza wa jalla waxaan ku mahadinaynaa maanta inuu noo qadaray inaanu safar u nahay xaj insha Allah taala magaalada Garowe aanu ka dhoofayno annagoo la soconna shirkadda Carafaad oo hawsha suuro gelisay إن شاء الله تعالى وحانو قرشها يجو يحي إن أنو مدينة ما تتجنو لما الموت شوجنو كدبنا أنو بيت الله مكة المكرمة أن أجذبنو الله عز وجل وحانو كبرينا إنه أنت السوق دي سنة كأني سو حجيان وكأقبله أنت أي أسود عين دونان وأقبله dalka iyo dadkaba Allah azza wa jalla waxaan u weydiinaynaa nabad iyo barwaaqo iyo xasilooni waan Allah azza wa jalla u weydiinaynaa xanuun baa wadanka ku jira xanuunka Allah ka dulqaado dhammaan inta uu hayo ilaahay ka dulqaado dad badan oo kurbaysan oo caruuro ka tahriibeen baa jira oo badaha ku dhibaataysan Allah nabad yeelo الله النبض يلو بري يميل بدقبت الله جيو أنت أصعتنا الله كم دوبيو قعنتو ذا الله كقبته إلى أساسا نكبر ينا هو يوينك أدرن هو يوينك كربضه هيس الله كدل قاض إلى أساسا أبرينا إن شاء الله تعالى الله عز وجل وحنو كبرينا إنه نبض قبي عافمات دتكي يديجان كي نوجسو عليه لغانا أقبلو عملك حجك دنب الداف الله عز وجل ونقصي يدمان انت يد حجيسة اللهم صل على سيدنا محمد